wacan daawadayaal halkani waa mustaqbal ku soo dhawaada qodobada warkayaga caawa ugu waaweyn madaxweynaha dawladda federaalka oo sheegay in doorashada dalka ay dhacayso waqtigii loogu talagalay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo maanta dib u helay xurriyadiisii kadib sanad ka badan oo uu xirnaa dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo al-shabaab oo ka dhacay Bokool iyo ciidamada Itoobiyaana oo qaraxyo lagu leeyahay degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo shacabka deegaanada maamulkiisa ka dalbaday ugu baaqay in ciidamada ay kala shaqeeyaan sugidda amniga intaasi wixii ahaayeen qodobadii warkayaga ugu waaweynaa markana ku soo dhawaada warkiyo dhameystiran anigoo Shukri Sabriya ayaa warkaydiin aqrinaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta khudbad ka jeediyay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto Nasriin Maxamed Ibraahim ayaa warkani faahfaahinaysa xarunta Villa Hargeysa ayaa maanta si wada jir ah looga furay kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ah golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxaana munaasabada oo horey loo mudeeyay ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda labada gudoon ee baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaasha qaar ee maamul goboleedyada baarlamaanka saraakiil ciidan iyo marti kale oo lagu casuumay mas'uuliyiintii hadal jeedinta sameeyay waxa kamid ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish markii labaad ka soo hor muuqday baarlamaanka waxaana uu sheegay sida ay muhiim u tahay in la anbaqaado shaqooyinka horyaala waxa la soo gudagalay marxaladii transitional period-ka ma marxaladii intiqaaliga ahayd waxaa looga baahan yahay mas'uuliyadda halkan fadha dhammaantood isku duubni iyo hufnaan marxaladaha siyaasadeed iyo marxaladaha caafimaad darro ee jira arrimaha amniga daadadka ku soo rogmaday meelo ka mid ah dalka oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Muqdisho gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xashe Cabdilaahi ayaa sheegay in golaha aqalka sare ay ku guuleysteen meelmarinta hindi sharciyeedyadii ka soo gudbay golaha shacabka intii ay socotay munaasabada furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka waxa ka hadlay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu soo jeediyay in waqtiga haray laga wada shaqeeyo sidii lagu dhameystiri lahaa shaqada dhiman arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka ayaana uu ka hadlay si ay u soo diyaariyaan xeerarka hoos ku xusan ee laga sugayo inay baarlamaanka hor keenaan xeerka deegaamaynta kuraasta baarlamaanka xeerka xaqiijinta qoondada haweenka xeerka doorashada xubnaha labada gole ee gobolada waqooyi ee Soomaaliya xeerka xuquuqda matalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir intaa waxaa sii dheer gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Xaliima Ismaaciil ayaa loo qorsheeyay inay hortimaado labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 27 bisha Juun si ay u soo bandhigto qorshayaasha iyo cayimaadda taariikhda doorashooyinka la qabanayo si waafaqsan qodobka 13aad faqradiisa 3aad ee sharciga doorashada waxaan rajaynaynaa in dhammaan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya soo dhaweyn iyo wada shaqeyn buuxda siin doonaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaa si rasmi ah u furay kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu qabo dastuurka dalka balse markii uu hadalka bilaabay madaxweynaha ayaa waxa isqabsaday buuq qayb ahaan ka bilowday xildhibaano madasha fadhiyay dhowr daqiiqadood ayay habdhowrayaasha baarlamaanka ku mashquulsanayeen sidii ay dib xaaladda ugu soo celin lahaayeen halka markii hore ay ahayd
ugu dambeyntiina waxay ku guuleysteen in fadhigii ay xasiliyaan oo madaxweynaha uu halkaasi kasii bilaabo khudbad jeedintiisa balse madaxweynaha ayaa hadaladiisa waxa ka muuqanaysay caro xoogan waxaana uu ka warbixiyay arrimo badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay qabatay balse waxa uu isdul istaagay arrimaha ku aadan doorashooyinka maadaama ay tahay waxyaabaha ay dadka isha ku wada hayaan haddii ay ahaan lahaayeen siyaasiyiinta weliba xisbiyada dalka ka jiro iyo qaybaha kale ee bulshada waxaan ugu soo fool leh doorashooyinkii guud ee dalka sida aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 si aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018 waxaa shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah aan ku shirnay magaalada Baydhabo aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galayo aan gaarsiinayno isla sanadkii 2018 bishii Oktoobar waxaan shir gudoomiyay shir ay lahaayeen golaha wasiiradu waxaana faray inay soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaranka ayna u gudbiyaan golahan sharafka leh baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u furmay wixii ka dambeeya 6 Juun oo maanta ku astaysan waxayna shacabka ka sugayaan si aan baqaadista howlaha shaqo ee horyaala sidoo kale munaasabadii furitaanka maanta waxaanan ka qayb galin saxaafadda maxalliga ee madaxa bannaan sabab la xiriirta in la sheegay inay jirto xaaladda cudurka lagu jiro ee coronavirus balse arintaasi waxaa lagu sababeeyay mid hareermarsan xorriyadda saxaafadda wariye cabdimaalig muuse coldoon ayaa maanta dib xurriyadiisa u helay muddo sanado uu ku xirnaa Somaliland faafahinta warkaasi waxa inoo haya Bashiir Maxamuud Yuusuf magaalada Hargeysa xarunta Somaliland waxa maanta laga sii daayay wariye cabdimaalig muuse coldoon oo sanadkii hore 2019 bishii Abriil laga xiray magaalada Burco kadib markii warqadda xiritaankiisa la jaray waxaana taliyaha booliska saraakiisha ciidanka amniga ay sheegeen kolkii cabdimaalig muuse coldoon la qabanayay inay haystaan fasax ka soo baxay maamulka Somaliland coldoon siideentiisa waxaa ka qayb qaatay xubno badan xisbiyada mucaaradka wadani iyo ucid waxaana siideentiisa lagu sheegay cafis madaxweyne cabdimaalig muuse coldoon ayaa sharaxaya waxyaabaha muddada uu xirnaa uu la kulmay iyo ciddii ka qayb qaadatay anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bishii afraad ee 2019 maanta xor baan ahay ilaahay baan u mahadnaqayaa laka alxamdu ya rabb hatta tarda walaka alxamdu idha radayt walaka alxamdu ba'da rida ilaahay baan u mahadnaqayaa mahadnaqan la soo koobi karay waxaan idin sheegayaa haddaad isweydiinaysaan qaabkan ku soo baxay waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dayntayda ma magacaabi karayo waa badan yihiin aad bay u badan yihiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyay dhaliyay gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyaddeedii helo waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe oo isaguna siideynteedan ugu dambeysay ka qayb qaatay cabdimaalig muuse coldoon xeer ilaalinta Somaliland 3 qodob ay horay u cogsadeen in xarigiisa uu sabab u noqday taliska tubtii ayuu hayaa waa tabtii lagu hoogay taliska muuse biixi waa taliska cabdi ilay oo soo koraya dugsiga abaarso waxa ardayda lagu baraa isku galmoodka dadka isku jinsiga iyo dugsiga oo lagu barto diin aan ahayn tan islaamka ay ahayd 3 qodob ee xilaalintu ay sheegtay in cabdimaalig loo xiray cabdimaalig muuse coldoon ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo shakhsiyaad weyn ay ka qayb qaateen soo deyntiisa waxaan kaloo u mahad celinayaa qof iyo dhinac iyo hay'ad cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan maanta xorriyaddeeda helo oo ka xumaa inaan xidhnaado oo ducaynayay oo ku taamayey oo rajaynayay mar uun inaan xorriyaddeeda helo waxaa jira dad iyo aan la garanay oo dacallada caalamka jooga oo aan magacyadooda la aqoon oo khayr weyn ii rajaynayay
oo garab istaag weyn ii muujiyey intan gudaha ku jiro ma doonayo maanta inaan hebel idhaahdo haddaan hebel ku bilaabo hebelladu way badnaanayaan maanta waxaan doonayaa muxuu ahaa inaan intaa ku soo koobo waxaan si gaara oo aan ilaaway oo ay tahay inaanan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn hooyaday baa xidhnayd waxa weeye burcay ka imanaysay halkan ay igu imanaysay waxa weeye garabkayga ahayd ehelkayga waxa weeye sida ay igu samreenna jazaahum allahu khayr maanta anigu halkan muxuu ahaa weeye hadal argoosiya ama hadal maaga ka odhan maayo waxa weeye maanta waxa weeye waad ogtihiin yani marxaladda aynu ku jirno iyo xaaladda aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayey ay tahay inaynu gacmaha isqabsanno waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha isqabsanno waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yidhi nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay cabdimaalig muuse coldoon waxa uu ka mid yahay suxufiyiin dhowr ah oo hay-adaha ammaanka somalilan ay xidheen marar kala duwan waxaana maamulka somalilan ciidankooda ammaanka lagu eedeeyey inay had iyo jeer caburin ku hayaan saxaafadda iyo xarumaha warbaahineed ee ka howlgalaan kadib markay sii daayaan warar ka dhan ah maamulka talada haya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab oo ka dhacay gobolka Bakool iyo ciidamo Itoobiyaan ah oo qarax lagula eegtay deegaanka Qansax Dheere faafahinta warkaasi waxa inoo haya Zamzam Maxamed Cali wararka naga soo gaaraya gobolka Bakool ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ururka al-shabaab uu ka socdo deegaan lagu magacaabo Abal oo 20 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno kamid ah shabaab ay soo weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa taageersan Sheekh Muxtaar Robo Ali Abu Mansuur oo deegaankaas ku sugnaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay dagaalka ayaa ah mid xoogan waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya ee guutada 9aad ay dagaal xoogan kula jiraan shabaab oo weerar ku soo qaaday ma jiro war ka soo baxay labada dhinac oo ay faafayn ugu bixinayaan dagaalka maanta ka socda deegaanka Abal ee gobolka Bakool deegaankan ayaa hore fariisimo u ahaa wadaadka xabsi guriga ah ee Muxtaar Robo oo dowladda Soomaaliya ay ka soo xirtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay xilli uu kamid ahaa murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya dhamaadkii 2018 dhinaca kale kolonyo gaadiid oo ay wateen ciidamo ka tirsan Itoobiya ayaa qaraxyo lagula eegtay iyaga oo ku guda jira socdaal ay isaga kala gudbayeen wadada xiriirisa degmooyinka Bardaale iyo Qansax Dheere ee gobolka Baay dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen qaraxyo iyo rasaas dhowr meel ka dhacaysa muddo kooban inkastoo aysan xaqiijin waxyeelada gaartay ciidamada Itoobiya iyo dadka ku safray wadadaasi shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxyadan waxa ayna sheegeen in khasaaro dhimasho iyo dhaawac ay gaarsiiyeen ciidamada Itoobiya kana gubeen gaadiid dagaal oo ay wateen sida ay hadal ku dhigeen degmooyin ka tirsan gobolada Baay iyo Bakool ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si maalinle ah waxay ciidamada Itoobiya ay ugu sameeyaan socdaal ay isaga kala gudbayaan inta ay ku guda jiraan socdaalkooda ayaa waxay la kulmaan qaraxyo wadada loo geliyo iyo weeraro toos ah ciidamada Itoobiya ayaa iyana isgaarsiinta hawada ka saara kolka ay socdaalayaan wadooyinka ay badi kala kulmaan weerarada si xiriirka dadka halkaasi ku sugan uu u go'o sida ay mustaqbal u sheegeen dadka deegaanka Itoobiya waxaa Soomaaliya ka jooga askar qaarkood ku howlgala magaca AMISOM halka kuwa kalena ay hoos tagaan UN-ka siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday inay cadeeyaan ujeedka dalka ay u joogaan ciidamada Itoobiya Samsam Maxamed Cali Mustaqbal Muqdisho madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa shacabka deegaanada maamulkiisa ugu baaqay in ciidamada ay kala shaqeeyaan nabadgelyada deegaanadaasi faafahinta warkaasi waxa inoo haya Abshir Cabdullaahi Amiin madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maanta shir jiraayid oo ku qabtay magaalada Baydhabo waxa uu kaga hadlay waxyaabihii muhiimka ahaa ay u tageen magaalada Muqdisho
madaxweyne Laftagareen ayaa sheegay in Muqdisho safarkii ay ku tageen uu ahaa mid looga hadlayay dhismaha ciidamada iyo sidoo kale ciidamada aan diiwaan gashnayn ee ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed. ugu dambeyn madaxweyne Laftagareen ayaa shacabka Koonfur Galbeed ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidanka kadib imaatinka maamulka cusub oo majraha u hayo Laftagareen ayaa waxay ku dadaalayeen dhismaha Koonfur Galbeed iyagoo ballan qaaday in ay ka dhabeynayaan ballanqaadkooda. waxaan rabnaa shacabka reer Koonfur Galbeed meel walba ay joogaan inay sharaf iyo karaamo iyo gobonimo ay ku noolaadaan iyo nabad iyo barwaaqo ay ku noolaadaan insha Allah haddii Ilaahay yaraaho. waxa aan ka shaqeynayno on habeen iyo maalin u taaganahayna waa horumarka iyo midnimada iyo wadajirka iyo dawladnimada reer Koonfur Galbeed say kor ugu kici lahayd ay waxna qaadi lahayd waana ku guuleysanaynaa insha Allah taala. wax badanna waa noo qabsoomeen waxa kale oo dhimanna waa qaban doonaa haddii Ilaahay yaraaho. Abshir Cabdullaahi Amiin, warbaahinta Mustaqbal, Muqdisho. guud ahaan intaas ayaan ku soo xirayaa warkii aad kala socoteen Mustaqbal. aniga iyo inta warkayga la qayb qaadataba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. waad ku mahadsantihiin daawashadiina.